بروسس كائنات challenge جريسا أما تغيير isbeddel inaad raadisaa laba shay bay u baahan tahay bay dhahaan koowaad waa search for opportunities raadi fursadaha nololeed ha quusan weliga hayso odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way whatsoever bulshada ay ku sugan tahay there is a way hogaamiyaasha dunida la yaqaan xataa kuwa maadiga meelaan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen wadankan yar ee Hong Kong la yiraahdo waa taqaanay dunida dabadeedu ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba deedulna waa 24 kilomitir maxaad u malaynaysaa wadan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guriga lagu dhiso Malaysia ka qaadan jiray adoo qiyaas wadan ciidana soo dhoofsanaya ma haystay wadanka ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay wadanada dunida ugu dhaqaalaha sareeyo ku jira ugu horumarsan buu ku jira around 2000 wax ku dhow oo technical school isabuleeyay bay yiraahdaan qiyaas adigu isku wadan yaro inta leeg nin qaayida 20 sanadood hogaamiyay oo cid walba dhaafay ra'iisul wasaarihiisu waxaan filayaa shanta madaxweyne ama shanta nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamusho ka mid yihiin waa wadan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan waxay yiraahdaan qaa'idku he should challenge وين نقدر قف نولش challenge قرينيا قف اسكو ديا إنه عقبات كتلاب صدق تام معناه هذا وحوي وقف فرص رادينية ابحث عن الفرص نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صدح يطبن صندوق بي قريش ينتي كحرنا الديدني شن يطبن قبيل بيسوس صبان دقينا يقبلونه الديدي مركي دبار اللي يرى أنصاري أقبل شيء ده chance فرصة داخله وهلاي أيو دولة الإسلام كسبي صحابة سي هجرية المقالة دي أدري دعاة سيها قاكسة دولة دلنا إسلام جد دنيا جديدة one chance وهلاي يسقى 15 chances وايي فرصة وايي هل chance وهلاي بكفايدة إذا قائد كبير هذا كو وقف search for opportunities بيد هذا وقف رادينية فرص كرادينية كلباتنا waxay yiraahdaan waa experiment and take the risk haabsan tijaabi oo risks ka qaado wax kasto nolosha kamida waxay yiraahdaan cidda riskiga diida yani dhibaatooyinka cidda ka baqata horumarka ma gaadho hatta shirkadka dhaqaale shirkadka muqaamarada sameeya مغامرة حساب سنة أيها دقالو كوبعان مال كستوان مغامرة كتيرين بروفيت كوان إياه مالها سبور وريجا مالها هذا يقول دقالو كرد عالية وحنا كرد عوا ريسك ميدان لكن مالها سوى حلقة يبقى 50% ينقادو أما 100% بين ينقادو بروفيت ولذلك واحد الريسك جا إياه بروفيت كوي وده صعدة سومالد ما حيكون مع هذا برتيقان بريوم كرودة بيد هذا ويعني ونمن challenge قرينا إنه نولش هذا أنت تقانون كور وريكتي وأنا تهرب صعنين معه عيارها يكتل ما منا لبع عيارات يدين شاو معناه هذا مركن لأني فرصة رادي واحد هذا نقوش والله بس شيء الله يقدره وفرصة ده هي ديار جرو وبالله هذا فرصة وكهرية لي لكن أدقو أنا الديار هين هروس عن ميس هذا أدقو الديار تي لكن فرصة ده ويدنا سعن ميسي قوش بيد هذا والله بدأ صوّد كل ما وين فرصة دينا أطلق كلانتي أدقونا الديار وتهيقف مغامرة كلا يوقف فايدينيا إنها تهي بيد هذا وحيد هذا وفرصة هي مغامرة تشرسك حرني ما حتى شيء يعني نينك تشرسك عيارة محسومة يا صو تشرسك ما تغانين شطرنج كعيارتنا لا يرادو تشرسك وإنجو أمبو قف ولي بمركو هري دقينشي ولا ما دقيه سيدا شحدين وكله شحدين وكهر رئيسا تشرسك يدنا وجود كنا ولا دقاه لكن كان مركو هري دقين توكو وقرين إنجو أمبو أسكر تادي وحاجو يالي guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fakaraa taa hadaad guurto maxaa jawaabtu noqos maxaa soo baxaya markaas waxa ku soo baxaya intaas oo probability ihtimaalaad tira badan askariga hadaad guurto kaas guuri kara alternatives tira badan ihtimaalaad
markaas waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kan hadduu guuro maxaa ka dhalan idan waxa chance jiroo dhan baad xisaabinaysaa marka aad xisaabiso ayaad diiranaysaa inaad guurto laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto socankaa maaha in lagaa badiya waa suurtagal idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay jas cayaaraya laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuuda maxaa la sameeyaa dee waad ka quluxquluxsiinaysaa una wixii ka soo booda hadday lixi kuu soo baxdana lixun baad guuri haddii laba ka soo baxdana maxay labaad guuri that means maskaxda maad isticmaalin waa ku dayba waa muqaamir marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin tijaabinaya waxay yidhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay yidhahdeen enable others to act dadka kale u oggolow inay iyana shaqada qabtaan majaalka bannee madaxda iyo liiderska badh baa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jiriyow loo qaado markaad in cidiba ka ag muuqato ma jecla good leader maaha kaas liidarka dhabtii bay yidhaahdaan waa liidarka dadka soo saara waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey rag halkii intay qori isu dhiib weeyaan ile noloshiiyo qorigu intay qaadaan intuu la orday ka badan la carari kara John Maxwell leveladiisii afartaha markuu tirinayay levelka koowaad wuxuu odhanaya waa position waa ninkii kursiga iska fuulay ee dadkuna ku qasbana inuu raaco levelka labaad waxa uu ku tilmaamay inuu yahay permission waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyay oo dabeetana ay wax u ogolaadeen levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production waa qof midho dhaliyay oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxa qabto midhahan lagu daba socdo dadkana taqdiiri levelka afraad bay yidhaahdaan ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray oo waxay leeyihiin recruitingka doorashada marka hore u hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay positioningkana wuu hagaajiyey qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey equipmentkana wuu hagaajiyey bay leeyihiin wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtana wuu siiyey dabeetana wuxuu ogolaaday uu delegate gareeyey shaqadii wuxuu ogolaaday inuu qofku shaqeeyo haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso dabeetana tidhaahdid go ahead soco waxay leeyihiin waa martabada afraad ee qaa'idka waxay yidhaahdaan martabadiisa shanaad isaga ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay raggu soo saaray helay waa martabada shanaad labadan ba isku dar waxay dhahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye niman abuu ka wada dhigay qaada nabigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo haliyeeya wada ah oo dunida dawakiyey furtay dunidoo dhan fishankii nabi maxamed ee ahaa diintani waxay gaari doontaa guri kastoo dunida ku yaala ama biciisi casiisin oo bidulli daliili bay ku gaari doontaa fishankaasuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fishan dadkan inuu janno geeyo adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey yani waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equipment ka dhigay majaalkana uu u baneeyey qaada noqday marka saxaabo aan taariikhdii hore carbeed lagu aqoon ribci ibn caamir iyo mugiirata ibn shucbi iyo yaqaan waa nimankii rustam ka wareeriyey dowladdii beershi iyo raggii hogaaminayey raggii ka wareeriyey waa nimankaasi waa qaada idan waa level bay yidhaahdaan levelada ugu dambeeya ee qaa'idku uu gaadhay ka mid tahay oo waa maxay enable others to act ha noqonin qof anaaniyo leh wax walba aniga ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartidoo hore u sii daysid